بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبة جمعة انتي وخطيبكم نو أخري أي نوتهاي dadkaas walaalaha ee la sheegay dhibaatadaas haysataahi naguma cusba hadee awalna waan la xanuunsan jirnay haddana sidoo kale aan u xanuunsanayna laakiin anaguna sida uu sheekhu u barbar dhigay mid aan taas aan ka yareyn oo noo gaara ayaan haysata adduunyaduna qarniga 12aad adduunyo maslaxadeed ay iska noqotay oo anaga la sidayna waxaan xaq ugu lahayn ummado badan oo muslimiin ah in ay qadiyadan khawaarijta oo dadka muslimiinta iyo dadka caalamka oo dhan oo ah maxaan ku iraahdaa cadawga in nalaga garb istaagay ahayd qaar badan oo kamid ah waa nalaga garb istaagay dabcan laakiin sidii haddana ay u dhameystirnayd ma dhaam intaas kadib laakiin xaqiiqada dhabta waxay tahay annaga iskale wiilashu annaga inaga soo dhaxbaxeen khawaarijta dhulkanaga ayay joogaan marka annaga mas'uuliyadda koobaad ay naga saaran tahay inaan xalino waa ku baaqnay intaas soo jeer inaan si nabad ah ku xalino oo ay isbedelaan ka tanaasulaan fikirka qaloocan ku soo noqdaan ummadooda laakiin ilaa ay hadda inta badan wili baaqeena salmiga nabadda ah daga laab u dolaala kuma dhicin waa rajaynaynaa mustaqbalka inay ku dhacaan u saaxan mayna meel ilaahay soo hanuuni intaan dhahno وساحمينا مال إلهي سوهم لنا وانا اسك دعينينا hadii alla yiraah waana waxa aan ku jirno waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed meel kasto oo joogo gaar ahaan kuwooda miyiga ku nool ee deegaanadu ay nimankan ku habsadeen muddada dheer ku nool ayaa runtii aad iyo aad door aan la soo koobi karin ka qaatay in ay iska kiciyaan sidaan hore u sheegay kalluunku wuxuu ku nool yahay biyaha haddii barkada kalluunku uu ku nool yahay biyaha laga daadiyo ka dhamaadaan kalluunku ma noolaan karo argagixisada iyo khawaarijta waxa ay ku dhex nool yihiin oo biyahoodii ay ku dhex dabaalanayeen waa shacabka Soomaaliyeed maantana ilaahay mahadi shacabka Soomaaliyeed waa arkeen nimankaan niman la sii xambaarsanaa kar inaanay ahayn waana ka hor yimaadeen waana diideen wixii ay ku soo jireen 16 sano ee la soo dhaafay sidaas daraadeed khawaarijtu maanta waa kalluunka biyaha ka dhamaaday ee wili firq leh gadgadoomaya laakiin de la garanayo qof walba meesha uu ku dambeeyay inay tahay geeri nimankaas wali waxaan ugu baaqaynaa baaq nabadeed ummadooda Soomaaliyeed soo raacaan diintooda xaniifka ee toosan ee ummadan malaayiinta ay ku dhaqan tahay abna ay ku dhaqmi jirtay soo raacaan ha ka tanaasulaan fikir aanan anagu lahayn asalkiisa aanan lahayn diinta islaamka hore looga sheegay oo aan meel raad isal midna aanan ku lahayn bal muxuu ahaay in badan oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ka digay anuu sheegay inay jiri doonaan oo meel badan ay ka soo bixi doonaan annaguna aan ka midnahay meelaha la tilmaamay inay ka jiri doonaan oo ay hadda dalkeena ka jiraan marka taas dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego ayaan dhaweeto dhibaatooyin dagaal yaa lagu jiraa dagaalka guud ahaan jahooyin badan iyo meelo badan iyo wajiyo badan asoo ah yaa lagu jiraa macnaha marka hadii hal macrako ama hal goob dagaal oo culays ka yimaado macnaheedu in dagaalkii lagu guul dareystay ama lagu fashilmay ma ahan dagaal waa sidiisaba waa saas waa lagu jiraa wadada halganka iyo dib u xoreynta iyo soo celinta karaamada ummadeed iyo waxa la midkaana wada toosan oo inay inta ka baxdo meeshii aad rabtay toos ku geynaysa ma ahan waa wada leexleexata oo qalqalooc badan oo qarar ka degta oo buura fuusha oo aad iyo aad u dhib badan waay waxaan arkaynaana annaga arkayna ummadda hadda laga hadlay Falastiiniinta 70 dhowr sano ku jirta ee arkayaan waa wadadaas halganka ah oo aan lahayn dariiq toosan loo maro balse laablaabka iyo buuraha la fananaya waxaas marka dhan maxaa u asala maxaa shabaab khawaarij iyo dad xaq jiray caalamka meel kasta ka jiraan annaga masalada maxaa shabaab dalkeena maxaa keenay kuwan maxaa dalka maxaa ku weyni cawlamada adduunka maanta sameysatay iyo globaalka horta adduunyadu waa isku xiran yihiin waa tan la yiri adduunyadu waa hal tuulo waa tan la yiri marka khawaarijti meel kale ka jirtay inay noo soo safriso fikirkii oo ay dalkan ay keentahay wax diiday ma jirin sidaas daraadeed ayaa nimankan ku yimaadaan laakiin asbaabta keenta waa maxay
asbaabta koow iyo laba iyo saddex ah ee keentay waxa waaye dalkanagu beriga ay ku curteen ay ku dhasheen ay ku bulaaleen inay dowladnimadeenu daciif ahayday oo ay nuglate meel kasta oo dowladnimadu ay ka nugushahay ayay nimankaan ku bulaalaan meeshii dowladnimadu ay ka xoogan tahayna rajo lagama qabo inay ka dhashaan mugi caalamkoo dhan dal aanay kuwa fikirka kuwaan qabaan dad qabaahi aanay joogin si kasta u yaraadaan aanay joogin ma jiro waa wada joogaan laakiin nidaam dowladeed oo aanay ku bulaali karin ayaa ka jira dalalka annaga waxay agteenna ugu bulaaleen waxay tahay dowladdeennii muddadii ayna soo dhex galeen dowlad nugul inay ahayd oo aan dalkoo dhan aanan kontrolin oo dhul badan oo ballaaran oo dalka soomaaliya ka mid ahay wax dowladnimaa oo gaaray aanay jirin sababtaas ayaa keentay inay dalkeenna horta ku dhasho marka sababtaas markay keentay waxaan inaan ka baxnaana waxay u baahan tahay sababtii inaan cagsina oon bedelna oon dalka dowlad u yeelna dowlad dalka dhan mas-uul ka ah hadday tahay bad hadday tahay berri hadday tahay hawo dhammaan mas-uul ka ah oo dalku u xadidan yahay u kontroolan yahay ilaalisa ximaayadaysa waxa ay dadkan waataan hadda ka hore u sheegay ummadaha dowladuhu ummad kastaahi dowlad waxay u samaysataa sabab gaar ah oo iyadoo ay leedahay ummadaha deegaanka ama dal wada degan waxay isugu jiraan kuwo kala duwan kala diin ah kala af ah kala maxaanku irahdaa asalkoodii kala muxuu ahaaye jinsi maxaanku irahdaa kala duwan oo maxaanku irahdaa luqadi ka dhaxayn oo diin ka dhaxayn waxba ka dhaxayn dowlad waxay u samaystaan inay u samayso wax ka dhaxay dadku wax ka dhaxay hadaanay lahayn ma wada jiri karaan mana jiri karaan sidoodaba ummad meel degan wax ka dhaxeeyo oo ay wada leedahay oo ay wada ilaashanayso inay leedahay waa kuwaas kala duwan marka dowladdu waxay u samaystaan wax ka dhaxeeyo oo ay wada ilaashadaan inay u samayso dowladda sidaas daraadeed wuxuudii gaargaarka ay gooni u haystaan diimahoodii iyo wuxuudii laakiin wax ka dhaxeeyo oo ay wada ilaashadaan inay samaystaan si dowladnimadan ay ugu xoognaan ayaguna ay u wada jiraan u wada joogaan cagsiga taas marka maxaa ummad mid ah oo aan kala duwanayn oon dhalasho ku kala duwanayn oon dhaqan ku kala duwanayn oon diin ku kala duwanayn oo aan habnololeed ku kala duwanayn oo midaysan ayaa ayaguna dowlad samaysta maxay u samaystaan waxay u samaystaan dowladdu in ay u ilaaliso waxaas ka wada dhaxeeyo ay leeyihin diintiyaa naga dhexayso afkiyaa naga dhexeeyo dhaqankii suubanaayaa naga dhexeeyo dalkii iyo deegaankiyaa naga wax walbaa naga dhexeeyo oon wada leenahay waxaas aan wada leenahay inay noo ilaaliso dowladda waxaa ka mid ah waxay noo ilaalinaysa diintaa ka mid ah diinta islaamka marka dee ilaaha ballan qaaday ayadu oo hadda anagu ballanqaadkeenna kuma xirna oo ilaaha yidhi diintaasi annaga soo dejina annagaana ilaalinayno laakiin ummaddan dhexdeeda inaanan fasahaad iyo maxaanku rahdaa inxiraaf iyo balaayo kale iyo kala qaybsanaan ummadda diinta ummadda way midaysaa ayagoo kala duwan markay u timaado hal diinta islaamka hadday wada qaataan way midaysaa nimanaa soo dhex galay inay dadka ku kala qaybiyaan rabo dowladdii yac ka dheerahayd waxoogaa beriga meesha way ka maqneed dowlad inaan yeelanahay waxay koow muhiim u tahay ilaalinta koow waa diinta islaamka oo aan leenahay hal shacabaan nahay soomaaliyaan nahay isku afaan nahay isku dhaqanaan nahay laakiin qabaa'ilaan kala nahay meel aan ku kala qaybsanoo hoosaan leenahay kor jirida geedka waa isaga xirannahay laakiin xididihii wixii kala baxayo geedku lahay ayaan leenahay iskumana eedayna iskumana waxaynayna waaban leenahay inna jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allahi yacni ilaahay hor u sheegay inay jiri karaan ama qurumo dowlado ha loo fasiro ama qabaa'il meel wada deganoo sida soomaalidoo kale ha loo fasiray qabaa'ilkaasaan nahay laakiin taasi kor markaan isaga nimaado geedka jiridiisa soomaaliyaan wada nahay diintaa naga wada dhexayso dalkaa naga wada dhexeeyo waxa dhammaa naga wada dhexeeyo afkaa naga dhexeeyo kuma kala leexsan nimanka khawaarijta marka intaana fiiriyaanuna daraaseeyna yare nimankan xaggee laga kala reer hebel haddaa ka gasho reer hebel ka soo horjeedaa diidaya oo waxa reer hebel wadaan ma rabna dhahayo meesha ay ka wada kacaan oo ay ka wada degaan waa diinta islaamka aan ka galno moogiye inay diin wadaan ayagu dad diimeed yihiin maaha xaggee ka galnaa dadkan waxaan ka geli karnaa diinta intee ugu fiican waa inta meeshaas waa meeshana laga soo galay horta haddaad aragto qof fikir yar oo iska dadkeenan ama nin sheekhaha iskale fikirka hala yidhaaha la ordaya keligii la cararaya haddaad aragto
nin ummadda kala qaybinayo on waaye ee nin ummadda midaynaya maaha ummadda diinta islaamka ee sunniyiinta aan ka nahay ee maxaanku irahdaye madhabka shaaficiga aan ka haysano kaas waaye ee muxuu ahaye diinteenna rasmiga ee asalka ee ku tiirsan kutubka qur-aanka ilaahay soo dejiyey iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ka soo haroo dhan waxa waaye wax oo hadda aan anigu aan nimankaani marka meesha inaga soo galeen waa meeshaas diintiina kuwa xunxun ee sunta ah kama ilaalin karno haddaanay dowlad lahayn dowlad ilaalisa oo kutubada dalkan la keenaya ilaalisa oo mashaayikhda dalkan maxaanku irahdaa waacidiinta oo dadka wacyiga gelinaya oo wacdinaya ilaalisa oo manhajka ilaalisa haddii aanan helin dee maalin walba mid un baa noo imaanayo maalin walba mid oo tabeello gaar ah oo astaan yaroo meel yar oo laga soo dacmiyo xoogaa lacaga laga soo siiya ayaa noo imaanaya marka isku soo wada celi daawadeed mushkiladeenu dhan dhinac walba markaad ka eegto diinta keliya ma aha dhinac walba markaad ka eegto waxay ku soo koobnay dowlad